dowladda Soomaaliland ayaa ku guul dareysatay xal u helidda nidaamka dalku galka fiisaha loo yaqaan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo rogtay in dadka imanaya dalkeedu ay u goostaan nidaamka online-ka ah ay dejisay dowladda Muqdisho waxaana tan iyo markii ay Soomaaliya soo rogtay nidaamkani dhibaato aan kala joogsi lahayn kala kulmaya muwaadiniinta reer Soomaaliland ee dalalka dibadda doonaya inay dib uga soo noqdaan dalkooda hooyo waxaana sidoo kale dadkaasi muwaadiniinta reer Soomaaliland haatan ay wajahayaan caqabad kale oo dhinaca amniga ah oo ka daran tii hore ay ka haysatay in marka hore lagu qasbo inay soo maraan nidaamka fiisaha ee Soomaaliya haatanna waxa la isku soo galay dhankii ammaanka xogtooda iyo noloshooda oo ay halis xoogan ku jirto ay hore diyaaradaha Fly Dubai iyo Ethiopia Airlines ku qasbeen in reer Soomaaliland ay soo maraan nidaamka ay dejisay dowladda xamar ee fiisaha loo yaqaano taasi oo caqabad iyo carqaladeyn ku keentay dadka reer Soomaaliland warbixinteenan aynu daawadayaal ku dul istaagi doonaa waxa cusub xogta aanu hayno dhibaatada reer Soomaaliland ay marayaan iyo halista ammaan ee soo food saartay ee ku soo dhawaada aan ku bilownay xukuumadda Soomaaliland ayaa tan iyo xilligii u bilowday muranka dhanka fiisuhu waxa ay qaaday tallaabooyin hor leh oo ay u arkaysay inay xal u noqon karaan dhibaatada ay muwaadiniinta reer Soomaaliland kala kulmeen qorshaha Muqdisho balse dhammaanba isku dayadaasi ay Soomaaliland qaaday gaar ahaan wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada oo ay u helisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo ka martay dhinaca diblomaasiyadda ayaa dhammaanba waxay ku soo idlaadeen fashil iyo natiijo la'aan marka laga midtaasi ka baxsan oo ah in mid ka mid ah muwaadiniinta reer Soomaaliland oo isagu xogta magaciisa qariyay iyo shakhsiyadiisa oo u dhacay xogta website-ka fiisaha kaasi oo dibadda keenay dhammaanba galka iyo dadkii iska diiwaan geliyay nidaamkaasi waxaana arrintaasi fadeexad iyo ceeb weyn kula kulmay dowladda Soomaaliya ee federaalka waxaana arrintaasi sababtay in dalalka Mareykanka iyo dalalka reer galbeedku ay muwaadiniintooda dibadda la keenay xogtooda ugu baaqaan inay ka soo baxaan dalkaasi haddaba fashilka iyo maareyn la'aanta dowladda Soomaaliland ka qaaday xal u helidda xafiltanka awoodeed ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya oo iyadu ku doodaysa in Soomaaliland qayb ka tahay dalkeeda ayaa waxa uu keenay haatan in muwaadiniinta reer Soomaaliland ay ku qasbanaadaan qaadashada nidaamka ay hirgelisay wasaaradda duulista Soomaaliya waxaana dadyow kala duwan oo reer Soomaaliland ah kuwaasi oo doonayay inay dalkooda yimaadaan ay ku sheegeen muuqaalo iska soo duubeen inay ku qasbanaadeen isla markaana qasab ku noqotay inay u hoggaansamaan awaamirta dowladda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho waxaana arrintaasi ay ku soobeeyeen in ay waayeen dadaalkii iyo tallaabooyinkii dowladdii dalkooda ka arriminaysay ee uu hogaamiyo madaxweyne Errol kuwaasi oo haatan u muuqdo kuwa awoodi waayay inay xal u helaan in muwaadiniinta reer Soomaaliland aanay hoos tagin maamulka hawada ee Soomaaliya waxaana xogo kala duwan oo toddobaadkii ugu dambeeyay soo baxaya ay tibaaxayaan isla markaana ay baahiyeen warbaahinta dalalkaasi Soomaaliya qaarkood in xukuumadda Soomaaliland oo isfaan hoose dhex maray xubno ka mid ah dowladda Muqdisho kuwaasi oo iyagu u ogolaaday in dowladda Soomaaliland uu fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ay qaadato saamiga ama qaybta kaga soo hagaagaysa lacagta laga qaadayo dadka goosanaya fiisaha dalku galka lacagtaasi oo qadarka halkii qof laga qaada uu dhan yahay 60 lacagta dollarka Mareykanka ah inkasta oo aanay Soomaaliland marnaba ka hadal jiritaanka warkan sidoo kalena aanay wax wara ka soo saarin guuldarrada go'aamadeedii hore haddana soo bixitaanka warka ee xusaya in ay si hoose u ogolaatay qaadashada saamiga dhinaceega ee lacagta laga qaadayo dadka doonaya inay goostaan fiisaha ayaa ah mid ka dhalinaya shakiga xaqiiq ahaanta warkaasi iyadoo arrintaasi jirta haddana dowladda Soomaaliland ayaan iyadu tan iyo bishii December ee haatan gabagabada ah iyo sidoo kale dabayaaqadii bishii aan ka soo gudubnay aan marnaba ka hadal dhibaatada iyo guuldarrada ka soo gaadhay dagaalkii ay la gashay Soomaaliya ee ku saabsanaa ka hortagga nidaamka fiisaha ee lagu qasbay muwaadiniinta reer Soomaaliland sidoo kale waxa aan jirin wax tallaabo oo ay qaaday Soomaaliland oo ku saabsan diyaaradaha caalamiga ee dalkayga yimaada ee dadka weydiinaya goosashada nidaamka fiisaha ee Soomaaliya dhinaca kale waxa xusid mudan in dhammaanba dadkaasi reer Soomaaliland ee mara nidaamka fiisaha ee dowladda Soomaaliya ay gacanta ku haysa ay haatan halis ugu jiraan arrimo la xiriira halis dhinaca amniga xogtooda ah oo ku timaada in la jabsado mar kale webka ama mareegta laga goosto fiisaha arrintaasi oo ay dibadda keentay inay mar kale dhici karto isla markaana aanay sugnayn amniga mareegtaasi warbaahinta Al Jazeera oo baaris ku samaysay guud ahaanba sugnaanshaha fiisaha baaritaanka cusub ee warbaahinta Al Jazeera samaysay waxa ay ku tilmaantay in nidaamka dalku galka elektarooniga ah ee ay dhawaan bilowday Soomaaliya ay weli aad ugu nugushahay dhanka amniga taasi oo halis ku ah xogta iyo macluumaadka shakhsiga ah ee kumanaanka qof ee codsaday fiisaha Soomaaliya nidaamkan ayaa weli leh goldololooyin amni oo saamaxaya in ogolaansho la'aan ama fasax la'aan loo dhici karo xogta xasaasiga ah ee ku kaydsan oo ay ku jiraan magacyada qofka oo dhammaystiran lambarka baasaboorka iyo taariikhda dhalashada
ceebaha nidaamka e-fiisaha Soomaaliya ay kaga adkaatay Somaliland oo 34 sano ee ugu dambeeyay gaarkayga u taagnid ayaa soo baxaya wax yar kadib markii ay hore u dhacday in la jabsaday nidaamkan in ka badan xogta 35,000 oo qof oo ay ku jiraan kuwa xasaasi ah oo dibadda la keenay taasi oo keentay in Soomaaliya ay ka guurto bartii hore horaantii bishii November oo ahayd markii ay jabsadeen nidaamkan e-fiisaha lana wareegeen dhammaan xogtii dadka isdiiwaan geliyay kooxo loo tirinaya inay ka soo jeedaan dalka Somaliland oo arintani si weyn iyadu uga soo horjeeday muwaadiniinteeda iyo dawladda waxaana faylasha la sheegay in dibadda la keenay ku jiray xog khusaysa diblomaasiyiin shaqaalaha gargaarka qandaraaslayaal shisheeye iyo dad u dhashay dalka Colombia oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin shabakad calooshado u shaqaystayaal ah kuwaasi oo lagu eedeynaya inay ku lug leeyihiin dagaalka iyo colaadaha laga hurinayo waddanka Suudaan inkasta oo ay ceebta arintani ahayd mid baaxad weyn haddana dawladda federaalka Soomaaliya waa ay ka aamustay markii hore taasi oo kordhisay walaaca dunida iyo dadweynaha codsanaya nidaamka fiisaha oo markii horeba muran dhaliyay qaar ka mid ah dalalka shisheeye ayaa dhawaan waxa ay soo saareen digniino daaran arintani safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa soo saartay ogeysiis amni oo ay ku xustay warar la hubo oo ku saabsan in xogo ay baxeen waxaana ay ka digtay in xogta shakhsiga ah ee kumanaan qof oo muwaadiniin ah oo Mareykan ah dibadda la keeno dhankeeda boqortooyada Ingiriiska ayaa iyaduna cusboonaysiisay tallaabooyinkeeda socdaalka dibadda iyadoo ku boorisay dadka safraya inay si taxadir leh ugu xisaabtamaan khatarta ka hor inta aanay codsan fiisaha elektarooniga ee Soomaaliya ay soo saartay waxaana hadda halis amni khatar ku jira guud ahaan shacabka reer Somaliland kuwaasi oo ay haatan dantu baday inay maraan nidaamkaasi aan sugnayn ee Soomaaliya ay maamusho halisna ugu jiraan midda ay Mareykanka iyo boqortooyada UK uga digtay muwaadiniinteedu inay ka feejignaadaan arrintaasi oo muwaadiniinta dhalashahan ka soo jeeda Somaliland ay ku qasbanaadeen inay u bareeraan halista amni ay kaga iman karta mareegtaasi xogtooda ay inay geliyaan waxaana bulshadaasi iyo kuwa kaleba ay isweydiinayaan oo reer Somaliland su'aalo badan oo ay iska weydiinayaan mustaqbalka iyo jiritaanka dalkooda waa Somaliland kaasi oo 34 sano ugu dambeeyay ku talaabsaday horumar kala duwan oo dhanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ah balse hadda ay markii ugu horeysay soo baxayaan xogo muujinaya inay weli hoos ugu jiraan dawladda caalamku taageero ee duleedka caasimadeeda Muqdisho ay ka taliyaan kooxaha loo yaqaan xagjirka isla markaana mas'uuliyiinta dawladdaasi ay waardiyayaan ciidamo shisheeye oo shaqo doon ahaan u jooga dalka Soomaaliya waxaana asxaabta mucaaradka ee kulmiye iyo ka ay guuldaradani siyaasadeed ee Somaliland kaga adkaatay dawladda Xasan Sheekh ay dusha u saareen xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Erre kaasi oo wasaaradda arrimahaasi duulista ay khusaysa uu wasiir uga yahay wasiir Fuad oo ka mid ah wasiirada ku cusub siyaasadda dalka kaasi oo la qabo wasiirada xukuumadda Erre saliuga ay shacabka Somaliland ka qabaan guud ahaanba mas'uuliyiinta uu xushay inay ka shaqeeyaan siyaasadiisa dhanka kale waxa iyaduna xusid mudan in xilligani ay weli muwaadiniinta reer Somaliland marayaan dhibaatada iyo ku qasbanaanta nidaamka ay Muqdisho maamusho e-fiisaha waxa uu wasiirkii shaqadaasi lahaa uu tamashle iyo dalxiis u joogaa dalka Ingiriiska oo uu ugu baxay safar aan ujeedadiisa la ogeyn balse u muuqda mid shakhsiyeed oo ku soo dhameysanayo arrimo isaga hoseeya waxaana arintani ku soo beegmaysaa xilli wasaaraddiisu aanay arintaasi ka hadal halka guud ahaanba xukuumadda Somaliland aanay mar dambaba ka hadal waxa uu ku dambeeyay nidaamkaasi iyo waxa ay ka yeelayso ka hortaga in qaybo ka mid ah hawadeeda ama guud ahaanba hawada dalkeeda iyo muwaadiniinteeda ay maamusho dawladda Soomaaliya oo ay ka madax banaanayd 34 sano ee ugu dambeeyay waxaana sidoo kale arintani ay kor u sii qaadaysaa shakiga laga qabo xogta ka timid magaalada Muqdisho ay qorayaan warbaahinta Soomaaliya kuwaasi oo sheegaya in heshiis hoose oo dhexmaray xukuumadaha Hargeysa iyo Muqdisho ay isla afkarteen awood qaybsiga lacagta $60 ee laga qaado qof kasta oo dalbada nidaamka elektarooniga ah ee fiisaha online-ka ah ee loo yaqaan e-fiisaha wixii warar ah ee ka soo kordha arrimahaasi waxaad si toos ah ugala socon doontaan